aadan xasan maxamed usaama wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed yashiid deki cilbiyood lanka talagalay inta lanka adeega dadka barakacayaalka ee kanool duleedka magaalada baydhabo iyaduna mashruuca hirgelinta ceelkun iyo galankujaysati hay-adda save the children oo iyo wasaaradda kula shaqeeyasa mashaariicdun shiid degi cilbiyoodka mayba wasiirka ka weheliyayay gudoomiyaha gobolka baay cali wardheer abdiraxmaan gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watin iyo wakiilo ku socday hay-adda save the children magaalada baydhabo ee xarunta kumeeljeerkan ee maamulka koonfur galbeed oo inta badan markii la diray xilliga jilaalka iyo bulshada iyo dareemayaan biyari baahsan iyo wasaaradda mayba iyo wade sidii bulshadii aan ku kaafiyeen lahaaytay sidii yoon hela lahaayeen biyo ka filan iyadoona iyo geeki iyo ku hirgeliyay duleedka magaalada baydhabo ceelanka talagalay intilanka adeega bulshada anka horeyntii mayba warbaahinta la hadlay maxamed xaaji madaxa mashruuca ee hay-adda save the children iyo sharaxay muhiimadda mashruucan san leeyahay bulshada ka nool magaalada baydhabo. بسم الله الرحمن الرحيم maantay waxaan halkaan u joognaa dhagax dhigga ama daafurka barnaamij biyo gelin ah oo aan ka sameynayno oo kamid ah barnaamijyada biyo gelinta baydhabo aan ka wadno oo ah qodista ceel ay maalgelisay muxuu ahaa hay'adda SHF Somali Humanitarian Fund barnaamijkaas oo aan ugu talagalnay in ilaa iyo 5,000 oo qoys iyo 30,000 oo qof oo ah dadka aad ugu baahan biyaha in maanta aan halkan isugu nimaano waxa halkan aan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo wasiirka iyo gobernatooraha gobolka iyo muxuu ahaa gudoomiyaha degmada baydhabo oo dhamaantood maanta nagala qayb qaadanaya muxuu ahaa dhagax dhigga ceelkan muhiimka u ah mana ahan ceelkii ugu horeeyay sidaad ka warqabtaan waana ceelal badan oo aan ka qodno cabdulaahi cali watiin gudoomiyaha degmada baydhabo waana doga magaalada iyo sidaas oo kale uu kala dardaarmay bulshada intii oo ilaaladaan cilbiyoodkan lagu hirgeli magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay barakacayaasha may baa ka barakacay magaalada baydhabo si bogtiin awaarti la mar may dhibaatooyin fara badan iyo waxyaabo badan la ka baradii may baa jirtay waxyaabo la ka baray may kamid may baa in may baa biyo badan may baa magaalada may baa ka jirtay taasoo may baa kaafiyo mar dadka barakacay dadka horey may baa deganayeen marka saaf iyo may baa dadka fanka dhiibasa jeefay kama nagaanahay si may baa juhud dadaal may baa biyahan in may baa ayalkii kisida may baa yo qodan kan ay oo kan geeka bilawday may baa kamid ay marka ciidanka ma nagaan dadka insha Allah may rajaynaa dad ayalkan gacan ku haynta muhiim iyo sustainability mustaqbalka may baa muhiim in uu may baa walbaan la ka fikir may baa in may baa ayalkii may baa dantalin qod iyo ujeedkan qod may baa in la deeyo may baa insha Allah muhiimata waan ma rajaynaa insha Allah in dad badan may baa biyo kala doona waana may baa insha Allah وبيرانت بيرو بقيبي ما يبغى قاعدون إن شاء الله برجعنا cali wardheer abdiraxmaan gudoomiyaha gobolka baayang mahadnagay wasaaradda shaqada fayla iyo kuwada deegaanada koonfur galbeed iyadoo mashaariic badan iyo ku hirgeliyay deegaanada koonfur galbeed magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayn iyo inta badan iyo ku kaafiyay bulshada sidii oo hela lahaayeen biyo ka filan marka inayada la hor ka ho eeltan la badi marka biyogi si dadka la qabtay fadi marka aan mahadnagaan diyoona tay fangreti mashruuc iyo mashaariicii hore oo la soo biyay intii fulidiin aan mahadnagaan marka may rajeenay in ku faa'iideysadaan dad elsin sheegay oo bulshada ah marka nolol wala koriyo binaadamka baahan biyo marka aan mahadnagaan intii fangreti may gabagabadii may bashiir dhigu ku hadalay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane aadan xasan maxamed usaama uu sugan sheegay intii wasaaradda iyo wada intii mashaariic nooyadan oo kale iyo ku hirgeliyada guutaan deegaanada koonfur galbeed kaliya ka ekayna magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay EDSF iyo maamul koonfur galbeed heer wasiir iyo heer gobol heer degmo iskaaladayaan inama la raashay sheegada eelkan geek oo nidaah furma meel la raashay dhagax dhigshay inuu roogna eelkan oo ku faa'iideysto doonaan dadka ka barakacay magaalada baydhabo runtii meel la raashay iyo ku aad barnaamijkii dowlad goboleed koonfur galbeed iyo waday meel la raashay in magaalada baydhabo بيرانتي كجرتي ميل الرئيس ونكبته وعيلكي سدها ميل الرئيس EDSF الجلدران ميل الرئيس وزارة ديو maamul ka heer gobol heer degmo iskaaladaan iyo fuliyaan runtii ma mahadnaqaanay hadda meel raayis SHF oo runtii aan qeybin ku qaadatay in barnaamijkan hirgala ka maamulaha ma inoo go'aano meel raayis in dadka baraka iyo meel raayis in sheegada dadka ku nool magaalada baydhabo iyo helan biyo filan oo nadiif ah runtii hoosna dareerta insha Allah ma rajaynaa waqtiga dhow in barnaamijkaas ay fulintiis bilaawo doono bilaahi naftanin kasam marka runtii mar lamaadi mar saddexaad ma mahadnaqay hay'adda sababta iyo SHF oo iskaaladaan iyo maamulada heer gobol heer degmo iyo wasaaradda oo meel raayis anteegan mar walba in meel dadkan baahid hayto oonka in oonka lagu biyo meel raayis in sheegada biyo nadiif ah helan
sameyla raayis maxamed xaji sheegi 5,000 oo qoys yaa meel raayis eelkan ku faa'iideysan doonto insha Allah oo bilaahi qaybnu ka ata istiraatiijiga oo meel raayis maamulka heer gobol heer degmooyinka oo ah in meel raayis IDP hal side la soo biyo side kan kullee inta ku fog isuuna meel soo biyo doona meel raayis extension bible lan soo biyo doona oo ayaanu qiibku nagadaaya marka runtii eedeedan ma hasantiin eelkan in meel raayis sheegayka bilawday insha Allah wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo muddooyinkii Indambo iyo Wadi mashaariic noocyada oo kale sidii ku hirgelin lahayd guutaan deegaanada koonfur galbeed tan iyo kaani kaliyanti iyo ku hirgelida magaalada Baydhabo dhawaan yahay markii magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo ku hirgelida mashaariic noocyada oo kale Faisal Maxamed Isaaq telefishinka dowladda koonfur galbeed Baydhabo.